dhagaystayaal maansada oo kaliya Soomaalidu iskumaysan halxilaaleyn jireen tiraabta qudheeda way isku halxilaaleyn jireen wuxuu ahaa hab ay si aad u adeegsadaan una isticmaalaan barbaarta iyo gashaantimaha macaanka noloshu oo markaa u muuqdo xilliyada xudxudashada ama shukaansiga oo ay guur qoys ay yeeshaan ku taamayaan waayadan aan ka hadlayo gabar ma tahay ma ahayn nin ma tahayna laguma xulan jirin laguma yagleeri jirin ama laguma dhisi jirin qoys ama reer intii muddo ah ayaa la sheekaysan jiray sababna dhowr ah ayaana la isbaran jiray si qoto dheer baana la isku baari jiray dhinac kastaba ha noqotee dhanka garaadka ama aqliga garashada qof ahaaneed iyo sheekooyin dhaxmara kuwaasi oo ay waqtigooda ku qaataan iyagoo isog ay haddana gugu hadda oo ku ballami jireen oo jilaalku haynaga gudbo isku mudan jireen marar badan cayaaraha habeenkii la tuman jiray inta la iskula kulmo oo halka la isku arko ayaa la isku weydaarsan jiray hal xiraalayaal qofba uu garasho dheerida midka kale ku ogow isleeyahay inta aan si kama dambaysa guur iyo xilamidnaba loogu bal aan idinkugu tusaaleeyo hal sheeko oo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida caan uga ah waxayna dhaxmartay islaantii caqliga badnayd barbaarkii la soo baxay iyo kaba calaf oo walaalkii ahaa sida sheekadu leedahay kaba calaf wuxuu ahaa nin aad iyo aad foolxumo loogu tilmaamo nin aan loogu roonaan wax ay qof dumar ah qacda hore ku calmato wuxuuna ku darsaday baa la yiri rasnaan iyo isagoo aanu aabayeelayn dharka uu qabo maduug baa nucseeba ma wasaqba waa ilaahay amarkii waxa la yiri ninka waxay walaala ahaayeen nin ay kala bax ahaayeen oo qurux oo dhan ilaahay ugu deeqay gabadhii aragtaana ay ku indadaraandari jirtay barbaarka quruxsamida loogu deeqay ayaa maalinkii dambe hawo guud ku talaamay gabar darisyada ahayd ayay ishu kaga dhacday dabadeedna xududasho kadib in la isla baxsado ayaa lagu heshiiyay markaas oo kalena ninka gabadha la baxsanaya wuxuu dhalinyarada midkood weydiisan jiray inuu raaco oo gabadha la bixiyo maantaana waxa barbaarka wadada ugu heleelay kaba calaf oo sidan soo sheegay ay isagu walaala ahaayeen habeenkii oo dhan baa la sii socday markii waagii bariyay kolkaas bay gabadhii tiri warmayno wax cuno barbaarkii la soo baxay inta eegay buu yiri ma adiga wax la cuno inoo wada maxaynu ku hamuun tiranaa kaba calaf oo waxay ula jeeday gartay ayaa markaas ku yiri walaalkii walaal gabadhu waxay ula jeedaa aynu cadaysano saa qofkii cadaysada baahidii iska rogi barqadii gooray tahay oo ay daaleen ayay geed hara hoos fariisteen cabaar haday fadhiyeen ayay tiri gabadhii warmayno nasano barbaarkii la soo baxay ee xaragada la tiicayay ayaa inta la yaabay ku yiri soo inaga fadhina nasashada kale waa maxay kaba calaf baasa sarbeebtii gartay oo markaas buu yiri walaal gabadhu waxay ula jeedaa waraynu kabaha iska bixino qofkaba ilani ama xiranimo nasne maxaa xigay socdaalkoodii bay iska sii wateen dabadeedna casar liiqdii kolay tahay way tiri cid baan arkaa hareeraha ayay eegeen barbaarkii gabadha la soo baxay waxba ma aysan u muuqan hase yeeshee kaba calaf baa tan gartay markaa buu yiri walaal gabadhu waxay aragtay duke meeshii shimbirka lagu arkaana cid baa waa siday sheegtay habeenkii cid bay heleen kuna hoydeen waagii kolkuu u bariyay ayayna ciddii ka anbabaxeen markaa bay tageen magaalo laga buuxo oo malaha labada isla soo baxsada shiiqii meherin lahaa uu joogo saddexdoodii oo wadooyinka magaalada dhaxmaraya ayaa ay gabadhii intay labadii nin ku soo jeesatay ku tiri warnimayo horta magaalada ma dhisan tahay mise waa ay dunsan tahay barbaarkii la soo baxay ayaa hadalkeedii la ashqaraaray oo la yaabay inay miyir qabtana ka shakiyay kaba calaf baasa sheekadii shakigii ka saaray kolkuu hal xilaalihii gabadha uu furay walaal gabadhu waxay rabtaa inayna weydiiso magaalada nin caadila miyaa xukuma mise nin eex yaqaana wax yar kadib iyagoo wali magaaladii ku dhex jira ayay arkeen ruux meeyda oo qubuuraha loo wado kolkaabay labadoodii soo egtay oo ku tiri
talow qofka la sii wadaahay ma dhintay mise waa nool yahay. barbaarkii la soo baxay gabadha yaab iyo ama kaag bay u joogtay eegan wuuba carooday. gabadhii hadalla darandoori ah oo cara iyo canaan kululi ka buuxaan ayuu ku haruufay naanaga aamuna waaba u raacshay. kaba calaf baase ujeedadii gartay inta walaalkii caradii ka qaboojiyay ku yiri walaal gabadhu waxay ula jeedaa qofka dhintay waraso ama dad ma ka tagay mise gablan buu ahaa oo waxba ma uusan dhalin. arrintii ugu darnayd habeenkii bay dhacday talow maxay ahayd. shiiqii bay soo hor fadhiisteen saddexdoodii kolkaa buu sidii caadadii heed doonay inuu ogaado labada nin oo ay la socoto midka ay isgursanayaan oo in lagu mehriyo ay rabto. markaabay tiri kaa igu mehri intay kaba calaf farta ku fiiqday. yaab iyo waxaan loo fadhiyin sooma ay noqon. kaba calaf waxaan ahayn markii afkeeda laga waayay sidii ay rabtay ayuu shiiqii yeelay. quruxdii ma ay raacine caqligii bay ku xulatay iyo furidii xilxiraalaha. waxay haybad ku yeeshaan habsaman ka guurka. guud ahaan dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijka iyagii bulsho kaaba qaybtiisii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkan aad dhegaysanayseen. intaan ku kulmi doono toddobaadka xiga anigu waa Axmed Maxamed Ibraahim soo jeediyaha barnaamijka bulsho kaab. habsaman ka guurka.